boqor gabadhiisa laga soo doonay. Sheeko Soomaali. Beri baa waxaa jiray nin boqor ah. Wuxuu boqor u ahaa magaalo weyn oo aad barwaaqo u ah. Boqorku wuxuu dhalay gabadh qurux iyo caqli Ilaahay ugu deeqay. Magaalada boqorku u xukumo waxaa soo gala 3 wado oo ganacsiga magaalooyinka kale uu soo maro. Wadooyinka mid waxaa fadhiista libaax wixii soo maraba cuna. Midna tuugo wixii soo maraba dhaca oo boobta. Midna waxaa fadhiista col wixii soo maraba dila. Maalin baa boqorkii gabadhiisii niman soo weydiisteen. Nin kasta oo ka mid ah nimankii wuxuu rabay inuu gabadha boqorka ee caqliga iyo quruxda badan guursado. Gabadhiisu waxay jeclayd wiil kale oo ay doonaysay inay isguursadaan. Hase ahaatee aabaheed lama rabin. Anugu gabadhayda waxaan siinayaa ninka wadooyinka magaalada soo gala oo dhan. Ta libaaxa, ta colka iyo ta tuugada fadhiisatay. Intaba xal u hela. Nimankii magaalada joogtay waxay ku tartameen sidii ay xal ugu heli lahaayeen jidadka magaalada. Hase ahaatee ninku guulaysta waa la waayay. Wiilkii gabadhu ay jeclayd isna sidoo kale u jeclaa ayaa u yimid gabadhii oo ku yidhi, "Waadigii caqliga badan lahaaye, bal tala keen maanta." Gabadhii waxay tidhi, "Libaaxa waxaan u dhigaynaa dabin ee adigu ha ula tegin warmo iyo waxyaalo kale." Wiilkii sidii ayuu yeelay. Libaaxina dabinkii ayuu ku dhacay. Wiilkii gabadha boqorka ay isjeclaayeen wuxuu u yeedhay dadkii magaalada oo dhan iyo boqorkii. Wuxuu tusay libaaxii oo ku jira dabinkii. Wuxuu hadalkiisii ku daray, "Waa kaa libaaxii wadada fadhiistay ee dadka cuni jiray. Aniga oo wax qalaba isticmaalin ayaan soo qabtay." Markaasaa dadkii oo dhan u sacbiyeen. Wiilkii mar labaad wuxuu ku soo noqday gabadhii oo weydiiyey wuxuu ka yeeli lahaa tuugta jidhka fadhida. Waxay gabadhi tidhi, "Waxaan karinaynaa cunto aad u macaan. Waxaanan ku daraynaa sun. Waxaanan ku raraynaa dameero. Jidhka tuugtu fadhido ayaan dameeraha u kaxaynaynaa." Markay tuugtii arkeen ayay ku soo ordeen oo qaateen cuntadii kalena boobeen. Markay ka dhargeen kulligood way dhinteen. Wiilkii mar saddexaad ayuu gabadhii ku soo noqday si uu u weydiiyo wuxuu colka ka yeeli lahaa. Gabadhii waxay tidhi, "Soo kaxayso fardo badan, mid walbana geed xagga dambe kaga xidh. Kadibna fardaha oo ordaya jidka eryo." Colkii waxay arkeen siigadii fardaha ee faraha badnayd. Markaa waxay yidhaahdeen, "Waxa soo socda ciidamo inaga fara badan, iskamana celin karno. Ee maxaan samaynaa?" Colkii waxay go'aansadeen inay kala cararaan oo midba meel ka dhaco. Sidaas ayuu wiilkii inanta jeclaa u guulaystay. Boqorkiina uu inantii ku siiyey. Caqliga wanaagsan
ilaahay qofku doono ayuu ugu deeqaa